Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Saaxiibayaal soo dhawaada. Waxaan rabaa inaan idiin sheego fursaddii aan TikTok-ga soo dhigay iyo ciddii la socotay sababta aan uga fikiray oon u qaadanayay inay downtrend tahay. Lacagta aynu ku jirno waa Euro USD. Markaynu joogno 2-hour time frame waxaa kuu muuqata in lacagtaani ay kor u socotay higher low, higher low ilaa higher high-ga u dambeeyay ay u socotay lacagtan uptrend ku socotay. Okay, labadan dhaqaaq ee 2-hour-ka ayaa soo jebiyey suuqii uptrend-ka ahaa oo dhaqaaqan low low, low high, low low-gan ah. Laba dhaqaaq oo downtrend ayaa lagu soo jebiyey. Waayo dhaqaaqan lower low-ga u dambeeya lower high-gii ugu dambeeyay ee ugu soo dhow waa kaas. Suuqaana uptrend-kaana halkaasaa laga jebiyey. Marka weli iima jabin. Dadka qaar waxay u fikirayaan in suuqu uu yahay uptrend oo lacagtan ay kor u socoto u fikirayaan. Waxaanoo dhan waxa weeye waa complicated counter trend waaye. Weli lama gaarin lower high-geenii ugu hooseeyay. Sidaa darteed lacagtu waa downtrend waaye ama waa bearish market ama waa sell market waaye. Okay, zone-keenaas oo dhan waxa ujeedaan candle-kaas cagaarka ee dheer inaan zone-kayga ku calaamadsaday. Ama supply zone-kayga oo ii tahay ama saylada suuqa meesha aad loo interest gareynayo ee la rabo suuqan in laga soo riixo oo down looga trade gareeyo. Okay, intaa markay xaajadu marayso 1-hour-ka haddii aad tagtid sababta waxaad rabtaa inaad trade fulisid. Waxaan shaqada aynu qofku u qabanayo ee maanta dhan candlestick-gaas uu akhrinayo wuxuu kala rogayo waxaas loo digidam leeyahay waxa weeye waa how to make money, sidee lacag loo sameeyaa waaye. Okay, shuruuc badan marka dadka isticmaalada waxa weeye law and order strategy-ga shuruucaha ugu muhiimsan ee leeyahay waxa weeye counter trend in la jebiyo. Liquidity-na aad soo heshid. Liquidity-gaaga lugtii jebisayna la soo jebiyo ama counter trend-ka la soo isku mid weeye. Saddexda dhaqaaq ee manipulation move-ka aynu u naqaanay oo ah in waxa weeye liquidity-ga la jebiyo, in liquidity-ga lugtii jebisay dhaqaaqii jebiyey isagana la soo jebiyo kadib lagu noqdo meeshii lugtii u dambeysay ee dhaqaaqas liquidity-ga jebiyey soo jebinaysay meesha kasoo bilaabantay in lagugu noqdo oo ah meesha trade-ka ka fulinayso oo valid ka noqonayo. Okay, waxaan haysanay marka number 1 liquidity-gii waa la jebiyey kadib dhaqaaqii liquidity-ga jebiyey la soo jebiyey kadib waa lagu noqday suuqana halkaasaan ka galnay. Maxay tahay marka halkaa marka lagu soo noqdoba oo lagu yimaado meeshii saylada dambe ee suuqa aad ka gelaysid lagaaga sameeyey lacagtan waa ku jirtaa sell ayaa ugu jirtaa. Maadaama ay inaga nahay marka day trader aan nahay oo aynaan ahayn dad usbuuca dhan aynaan hayn lacagaynu ku jirno aynaan dhowr maalmood haynin 2 maalmood hayn 3 maalmood haynin maalintaba suuqa ku kala baxno faa'iido iyo khasaare waxaanu ka faa'iidnaba maalintaasaynu faa'iidadeena ka qaadanayna inagoo targetkeenu halka ahaa marka waa maalintii jimcada oo sabtida soo gelisay weekend intaanu dhammaan. Okay, faa'iidada inta aynu uga soconay marka intee bay ahayd maadaama suuqa halkan ka galnay faa'iidada aynu u soconaa waxay ahayd all the way 84 bay ahayd maalintiibana waa laynoo taabtay maalintii jimcadaba intaan suuqu xidhmin targetkeeni waa la gaaray. Waxaan ka wadaa sorry trade-kii labaad baan xisaabsaday. Trade koowaad waxaynu u soconay 51 bibba yacni maalintii jimcadaba waa laynoo taabtay. Okay, waa target 1 maadaama suuqa marka aan u soo akhrinay inuu yahay suuq downtrend ah oo aan doonayo targetkayga koowaad inuu yahay fiiqa ugu dambeeya counter trend-kaygu meesha uu ka soo laabtay lower low-ga lugtaas weeye targetkaygu. Faa'iidada aan qaatayna waa 51 bib oo ilaa halkaana intaan ah waa faa'iidada koowaad. Intaanoo dambe oo dhan oo iska maran marka maxaa iska daynaya farahan ka qaadaya intaanoo dhan suuqa ilaa intaanoo dhan inaad suuqa gashid baa rabtaa sax ma iska daynaysaa marka faraha ka qaadaysaa suuqa jihadii waa kuu saxan tahay suuqan waa downtrend counter trend-kaaga lagu soo jebiyey liquidity waa haysataa waxa weeye 50 bib oo maalintii jimcadaba waa ka heshay faa'iidada ka qaadatay. Intan marka inta la jebinayo lower low-gaaga hoose sugaysaa maxaa samaynaysaa see yeelaysaa iska dhaafaysaa maya waxaan u degaynaa time-ku ka yar yahay scenario 2 iyo scenario 3 iyo waan kasii raadsanaynaa waaye
maanta marka suuqa inoo furmay isniin ahayd waxaan u degaynaa 15 minutka maxaa iyadana ka rabnaa intii in la eg baan ka rabnaa intii in la eg ayaan ka rabnaa halkaasaan waxaan ka helnay liquidity-geenna 5 minutka tag maadaama waxa weeye scenario 2 iyo waxaas 5 minutka lagu dhiso iyo 1 minutka iyo 3 minutka iyo intii aynu traderkii koowaad ku qaadanay in la mid baynu ka helnay waa kaa liquidity-gii waa la jebiyey laba dhaqaaq xoog laa soo daatay bay abaa kacay waa la yar nastay lugtii labaad baa lagu jebiyey waa la soo jebiyey lugtii jebisay liquidity-ga waa la soo jebiyey kadib waxaa lagu noqday meeshii aynu ka gelaynay suuqa wax yar halkan dhal ayaa madaxa la baxay xagga looskeenala aaday laakiin markiiba suuq waa soo daatay waa galabta waa soo dhigay iyada oo duuban before iyo afterteediiba markii aan waxa weeye aan saadaalinaynay halka intan oo dhan suuqa aanan dhaqaaqin ayaan soo dhignay markuu dhaqaaqina waatan waa la socotaa taargetkeenii markii la gaaray aan u soconay ayaa lasoo laabtay day markii loo dhawaaday wax yar dhowr biblos wax yaroo waxa weeye nasashaa la sameeyey ama correctiona kadib waa la laabtay waa la hidkariyey markii la hidkariyey ayaa lasoo laabtay okay faa'iidada maanta aan u soconay marka intee bibayay ahayd waxay ahayd 25 bib tii horena mise ahayd 50 bib isku dar 75 bib 75 bib ninka iibsada akoon 50 kuna oo $6 ku gala ama $5 ku gala muxuu ka faa'iidaya akoon 50 kun oo challenge ah qofkii iibsada oo shirkadahan fundingka bixiya ka iibsada kadib waxa weeye ku gala traderkiisa $5 muxuu ka faa'iidaya hal maalin one day $3,750 wey markaasaynu leenahay waddanku waa shaqo la'aan casrigan ilaahay in abuuray fursaddan aan haysano dhalinyaro waa fursaddii ugu fiicnayd ee qof dhalinyaro oo haysan lahaa weye waa fursaddii ugu fiicnayd waqtigan ilaahay ina abuuray 90kii iyo 80kii iyo 70meedyadii dadkii noolaa waa ka nasiib badannahay aqoontu internetka meel kasta ayay tunsan tahay inaad waqti gelisid dadaal bixisid if you want to be successful you have to buy the price haddii aad rabto inaad guulaysatid waa inaad qiimihii guusha bixisid weye okay tradekeena marka targetkii koowaad aan uga soconay lacagtan imise aynoo dhiman lacagta euro USD targetkii koowaad aan uga soconay ilaa waxa lacagtan waxay noogu socotay jaadeeda guud waxay noo ahayd soo ma markii ugu horreysay counter trainka lasoo jebiyeyba tradekii waa soo qaadan mar labaadkii Canadian scenario 2 iyo 3 iyo 4 iyo halkaa nooga samaysmay waa soo qaadan okay tan marka waxaan ka sugaynaa iyadana berri oo kale maalmaha ku xiga inay inoo samayso meelahaan inooga samayso yacni waxyaalihii aan qawaaciddan ku qaadan jirnay tradeka hadday inoo samayso waa garaacayna maalin walba euro USD iyo GBP USD labada lacagoodun baanu ka trade garayaa maalin walbana fursadayda waa ka helaa maalin walba targetkayga labada lacagood ba gaarsiiya marka haddii aad aqoontii baratid xirfadii baratid waxaan hubaa inaad guulaysanaysaan baan hubaa waxaan hubaa inaydin meel u fadhiyeen waddanka Soomaaliya waa shaqo la'aan waxaan hubaa inaydin tahriib u hanqal taagan waxaan hubaa adigoo waddankaaga hooyo jooga inaad waxa weeye gacmahaaga dhulka doontid laakiin maxaa la rabaa dadaal juhdi baa la rabaa waxaana arkaysid waxa kaama xigaan anigu waxaan aaminsanahay qofkii dadaala meel u fariista effort geliya waa lacag bilaash oo meel iska taataala runtii waa mahadsantihiin saaxiibayaal intaasaan rabay inaan idin wadaago soo dhawaada